السلام عليكم أصحابتي مالين كلو عصبان وبلاوتي الحمد لله رب العالمين سو دوادا نيروبي وينترا الوجراء sababta waxay tahay xalay oo dhan maqribkii roobkii bilowday ilaa saaka aroortii uu socday ani saaka waag markuu bari waxa isdhahayaba dhulkii oo dhan biyaa fadhiyo laakiin alxamdulillah suu u da'ayay biyo noomaysan fariisanin xaafadana biyo badan ma fariistaanba waa markii labaad ee noloshayda aan oodkac samaysto markii ka horeysay wuu iga halaabay qaabtaro iga noqday laakiin hadda wuxuu ii noqday ish calaa oodkaca ku dhahay kaal iska arag dhuxusha miyaa talow war meeshaan waxaan ku dhahay adaa keliga aad meel joogtid oo waxaan hooyo aaba kuu joogin waa la isku tashadaa dhexda la xirtaa wixii madaxa ku soo dhaca la sameystaa saan oo kaleente 5 kiilo oodkaca ka soo tuura ku dhahay waa markii labaad aan sameeyay noloshayda caagana ku soo shubay marka caaga iyo weelka ku shubaysid oodkacana waa inay aad qaleel u ahaadaan nadiif qaleel dhibic biyo waa inay ka gaarin hadii kale hilibkaas oo dhan wuxuu noqonayaa ka kac maanta miiskan shaqo ka qabanaya miiskan wuu cusub yahay xaqiiqatan laakiin naag la dhoo amaaniya saas u gashay waxay maris adika la sheeg qalinkii ilmaha iskuulka ay ku dhiganayeen dhinacayaasha dhan ay ka maraday meeshas madoobeysay yar ay ku haleysay aan maalin u marinay gacmaha kadibkiisa jartaa ku dhahay miiski dhan laakiin markaan aan waxa ku qasbanaaday wax badan horta jig ku xoqdada ay doona jig ku dhaq jig waxba ka tarweysay ilaa uu ku sigtay miiski inuu fiiqmaba laakiin waa u fikiray bacdaana u soo gaday ebil bacaha aan horta dadka miiska bacaha ku xirta ma ahayn ma jecleen laakiin bacdan quruxda badan aan daraad soo helay aad u jilacsan tahay waa sidii mara camal bacdan ma loo maleeyo waana kalar qurxoon xoogaa iska simple ah ani kalaradan markii furniture joogto cadaanka cadeyska iyo gareyga oo qafiifka waxyaabahaas aan jeclaa ma jecel kalarada culculus adduunkan ku dhaaf farsamo la isku dhaafay adduunyadana u jeeditay farsamo ahayd lagu kala tagay dadka farsamo yaqaanada adduunyada waxa laga dhahaa designerada abaalmarine helaan laakiin anaga Soomaaliya daana dadka liita u naqaanaan dadka farsamo yaqaanada marka miiskii bacdi ku guglay waa ku jaray horta waxa iga soo hartay qayb fiican oo aan dhulka cunto marka ku cunayna isticmaali karo koola u qaatay qoolada ku dhadhajiya ku dhahay ubixiisana dhaca ku soo sii ujeedin ina quraacda rabay miiska saas u egna ku quraacdo ila xumaat marka waxaas dhaa bacdiisi raadi ku dhaji hadda ani gabadheed yartaa meeshan ku quraac arabno hilibkii ay wali idinka dawada I'm so proud of me wallahi markaan oo kaleente naagtii oodkac samaysatay aad isku qanacsanaa ku dhahay haddana quraac Soomaali way iga heysay ayaamahan shaah iyo canjeero qurba joog markaan tahay waxaan ku dhahay waxyaabahan oo kaleente wixii lagu soo koraday shaah iyo canjeero bariis isku karis basbaas oo leh oo kulaalka lagu laqlaqaayo waxyaabahaas adii macaan ay kuleeyihiin qiir ku cunay waxa keenayo dhulka ka imaanay jiis iyo rooti qabowga inta ka soo bixis bahalkii toastiga ku riixis la cunaa xabadana amaaniyare u qooyay asxaabi muuqaalka intaanu ku egyahay mac salaamo